شيء مجنون هذا. halkani waxaa ku nool shacabka Amazon kumanaan sano ma macquul ba in qarnigii 21aad ayadoo la joogo in halkani weli ay ku nool yihiin dad bani aadan ah waxaan aadi doonaa magaalada Peru ee Latin America halkaas waxaa ku yaalo dhulka ugu weyn ee adduunka oo aan la degnayn laguma aadi karo xitaa dhulka ayadoo la marayo waa in diyaarad la qaataa ama hadaa rabto waxaad mari kartaa webiga laakiin dhulka lama mari karo intaanan bilaabin safarkeena dhulka Amazon waxaan mari doonaa suuqa ugu weyn ee Peru halkaas oo aan ka gadan doono waxyaabaha aan ugu baahan doono safarkeena suuqana waxaad ka heli kartaa khudaar wax walba aad u baahan tahay kalluun digaag hilib wax walba u baahan tahay waad ka heli kartaa safarkeeni runta ahaa hadda ayuu inoo bilowday ee dhulka Amazon aan u tagi doono dad ku nool dhul weyn oo aan la degnayn oo halkaas kaligooda ay ku nool yihiin safarkeeni hawada ahaa ayaa inoo bilowday nala socda waxayna u dhaxaysaa Brazil iyo Peru halkan aan u socono waa dhul weyn oo kayn ah ay ku nool yihiin dad halkaas kaligooda ay ku nool yihiin halkani waxaa ku nool shacab go'aansaday inay iska degnaadaan meeshaan kumanaan sano iyo qarniyaal ka hor shacabkani waa dad kooban waxayna gaarayaan 2200 qofood ugu dambeyn shacabkii reer Amazon waa u imaanay meeshay degnaayeen wayna arkeen wayna ugu soo carareen waan iskugu sheegnay inaan dhib wadanin oo kaliya aan u imaanay in xaaladooda iyo noloshooda meesha ay ku degan yihiin aan wax badan ka ogaano maadaama caalamka aysan wax badan ka ogeyn noloshooda waa ka dhaadhicinay arintii inaan la joogno in yar muddo ah way naga ogolaadeen in aan la joogno maalmo kooban waxay dhaheen soo dhawaada waa kuwaana shacabka reer Amazon halkan ayay iska degan yihiin caalamka dhan way ka soo fogaadeen oo yacni caalamka oo horumaray way ka soo fogaadeen meeshaan ay degan yihiin waa dad kooban oo degan meeshaan waa reer Amazon halkanina waa galbeedka Peru waxay u dhaxaysaa Brazil iyo Peru ayay u dhaxaysaa waa dad nadiif ah oo jecel dadka soo dhaweynaya run ahaantii way naga ogolaadeen in teamkeeni iyo anagaba aan la joogno wixii warbixin ah marka inaan dadka u gudbino way naga ogolaadeen waxay degan yihiin meel ayaga u gaar ah waxay leeyihiin dabeecado ayaga u gaar ah dhaqan ayaga u gaar ah dadka way ka duwan yihiin sidaan ayay u labisan yihiin oo jirkooda qaybta hoose kaliya ay dhar ka wataan qaybta kore way qaaban tahay waxay leeyihiin ciido iyo dhaqamo ayaga u gaar ah oo ay sameystaan sanadihii waa wax cajaa'ib badan oo run ahaantii waa dad go'aansaday in halkan kaligooda iskaga noolaadaan oo adduunkaasi iyo afaarihiisa dhanba oo horumaray iyo caalamka teknolojiyadda dhanba ka soo baxay ayay caruurtoodii iyo familkoodii halkan ayay iskaga nool yihiin shacabka reer Amazon halkan ayay bafahmeen meelna uma socdaan maxaa yeelay wax walba ay ka helayaan dugaag hadii u baahan yihiin way helayaan biyo way helayaan raashin hadii u baahdaan dhirtii isticmaalayaan ayagoo dhirtii wax dhibaato aysan u geysanin dhulkii ay ka faa'iideysanayaan daawo way ka helayaan raashin way ka helayaan hadii kalluun ay u baahdaan xitaa way soo dabanayaan waa dad duurkoodii iskaga go'ay oo wax kale aanan u baahneen wax walba ay u baahan yihiin halkan ayay ka helaan kalluun ha ahaado
shaqo hataa hadii la yiraahdo shaqooyin ayay haystaan oo waxyaabo ayay samaystaan ayaga u gaar ah run ahaantii halkan ayay wax walba uga kaaftoomeen duurkan ku yaalo waqooyiga Peru. waxaan odayaasha weydiiyey waxa sanka ka gashtaan dumarka oo waxa qoryaha dhaadheer ayaan ka wareystay maxay yihiin baan dhahay. odayaasha waxay igu jawaabeen waxay dhaheen waa caado iyo dhaqan aan ka soo gaarnay awoowayaasheena. dumarka sanka ayay qoryahaas gashanayaan ama laakiin raggu waxa calaamad u ah ayagana wajiga ayay ximarsanayaan ranji gaduudan. sidaas baa lagu kala garanayaa ragga iyo dumarka waana dhaqan soo jireen ah oo awoowayaalkeena aan ka soo gaarnay. su'aalaha aan weydiiyey marka waxaa ka mid ah oo waxaan iri waxyaabaha aaminsan tihiin muctaqadkiina wax iga sheega si anigana aan u gudbiyo caalamka kale aan u sheego. waxay dhaheen hal maalin ma ku ogaan kartid muctaqadkeena waxyaabaha muctaqadaadka ah aniga aaminsanahay haddii in badan aad nala joogto waa ogaan doontaa laakiin hadda qayb ka mid ah baan kuu sheegayaa. waxaana ka mid ah marka anaga ayay dhaheen dadka markay dhintaan anaga oo dadkeena ah waxa aaminsanaan jirnay dhaqan oo waxa noo ahaa in aan cunno hilibkiisa aan cunno. dadkani waa dad marka oo dad cun ah laakiin hadda kuwan jiilkan hadda joogaan ma cunaan sababtoo ah waxay dhaheen anaga hadda kalluunka iyo hilibka caadiga ah ayaan cunnaa laakiin awoowayaashiina waxaan ku soo gaarnay ayagoo dadka ka dhinta ama qofkii geeriyooda hilibkiisa cuna oo aaminsanba dhaqan iyo caado u ah in hilibkaas uu cuna ruuxda qofka dhintay in meel kale ay aadayso laakiin hilibkiisa inaan cunno. laakiin waayaha dambe waxaan bilownay in qofka hadduu geeriyoodo in la aaso oo la asturo. marka dadkani waa dad halkan ku nool dhaqankoodii iyo caadadoodii soo jireenka ah wuxuu ahaa qofka hadduu geeriyoodo in la cuno hilibka iyo cuni jireen bani aadamka ah laakiin kuwani kuwaas hore way ka duwan yihiin. kuwan waxa way hadda meeshii way degan yihiin laakiin hilibka bani aadamka ah ma aysan cunaan ma cunan hadda waxay helaan kalluun ayay raadsadaan shimbiraha ayay cunaan duurkaana wax walba ay ka helaan jiifkoodii guryahooda waxay ku dhistaan wax walba ay u baahan yihiin duurkaan ayay ka helaan. dad cunkii marka waa jiraan waa asal laakiin ayaga way ka badbaadeen. mar aan weydiiyey oo aan iri waxaan rabaa xaqiiqda dhabta ah reer Amazon inaan u gudbiyo caalamka wax iga sheega marka sideen aan u gudbin karaa xaqiiqdiina. waxay igu jawaabeen nin ka mid ah odayaasha wuxuu yiri anaga si aad noo fahamto waa inaad tijaabisaa cambo. cambo waa maxay baan iri cambo waxa waaye sunta oo raka inta la soo qabto suntiisa baa jirkaaga la gelinayaa markaas ayaad fahmi doontaa anaga waxaan nahay. rakaha inta la soo qabto ayaa la xirxirayaa oo adimaha laga xirayaa kadibna waa la jiidayaa. markii la jiido jirkiisa wuxuu soo tufayaa suntii loo baahnaa kadibna waa laga tirtirayaa suntii markii si fiican looga qaado oo sunta uu soo tufo rakahaas laga qaado dab baa la shidayaa. dab marka la shido garabkaagii meel ka mid ah ayaa dabkaas inta meel looga baahan yahay in sunta ay gasho ayaa garabkaaga loo duleelinayaa. dabka baa lagu diyaarinayaa. dabka markuu diyaariyo ayaa suntaasi oo rakaha laga soo tirtiray ayaa jirkaagii si tartiib ah loo gelinayaa. run ahaantii saameynta ay leedahay waa arki doonaa. dabka markii la shido oo jirkaaga la duleeliyay kadib ayaa suntii la gelinayaa. suntaas waxay sameyn doonto aan isla aragno insha Allah. xanuun badan ayaan dareemay marka jirkayga la gubayay sababtoo ah dab jirkaaga qabtay waa dareemi kartaa xanuunka uu leeyahay balse wuxuu yiri iska dulqaado in yar waaye. markii duleelintii ama dabkii uu dhameeyay kadib ayuu suntii igu shubay
markaas sunta markii lagu shubo kadib ayaa suntii waxay sameynaysaa marka jirka ayay la falcelinaysaa jirka markii cabaar ay ku jirto weliba falcelinteeda waa degdeg ma xitaa wax waqti badan qaadanayso sunta markii saas loogu shubo waxyar kadib jirkaaga waa ka dareemaysaa in shaqo badan ay qabanayso markay suntii ay siiyeen oo garabkii ay iga dureen anna waa ku qasbanaaday in wixii aan arko aan tijaabiyo waxay tahay muddo ay qaadanaysaa marka inaan sugo wax yar aan badnayn daqiiqada kadib jirkeyga ayay la qabsan doontaa ayagu marka waxay aaminsan yihiin suntani haddii jirkaaga saas loo geliyo in dheefshiidkaaga iyo mindhiciirtaada iyo maskaxdaadaba dhammaan inay nadiifin doonto oo jirka difaaciisa xataa inuu badan doono waxyaaba noocaas ay aaminsan yihiin balse anigoon ka fiirsanin natiijada ka imaan doonta suntan ayaan ogolaaday in sunta la isiiyo laakiin natiijadeeda khatar inay tahay iyo inay fududahay anigoo fiirinin ayaa suntii ogolaaday in jirkeyga la geliyo waxaan dareemay wareer isla markii waxaan dareemay jirkeyga oo dhan in ay suntii ku saaqayso oo shaqo badan inay qabanayso dhidid badan baa iga soo daatay waxaan dareemayay isbedel badan in jirkeyga dhexdiisa uu ka dhex sameynayo suntani muddo kadibna waxaan bilaabay inaan matag ayaan ku waashay maxaa yeelay jirkii ayay si fiican ula shaqaysay anigana dulqaadkii ayaa iga dhammaaday anigoo ogeyn waxaa natiijadeeda inay yihiin arrintan ayaan ku degdegay balse matag ayaan ku waashay maxaa yeelay dheefshiidkii iyo dhiiggii ayay la falcelisay intaas kadibna waxaa igu dhacday inaan mantago oo matagii aan cishan waayo markii aan matagii iga dhammaaday oo aan noqday qof tacbaan ah ayaa waxaan ka dalbaday in xoogoo aan nasto oo aan seexdo maadaama suntii jirkeyga ee ku faaftay sunta rakaha jirkeyga wax badan ayay saameysay haddaba nala socda qaybteeni labaad iyo wax isbedelay iyo wax dhici doono qaybta labaad ayaan iskugu iman doonaa haddii muuqaalkan aad ka heshay sii sheer garay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh